madaxweynaha maamulka galmudug maxamed axmed caalin oo maanta shir jiraayad gaalkacyo ku qabtay ayaa markii ugu horeysay ka hadlay eedayn ay u soo jeediyeen xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo maxkamadda sare ee maamulka taasoo ahayd in madaxweynaha uu gudan waayay xilkiisa iyo ku xadgudub axdiga maamulka madaxweyne caalin ayaa ku tilmaamay eedaynta maxkamadda sare u soo jeedisay mid ay ku badbaadinayso shacbiga galmudug iyo ilaalinta inuu khilaaf soo kala dhex galo madaxda maamulka asagoona gaashaanka u dururo eedahaas madaxweynaha eedaha lagu soo eedayn karo waxa weeye khiyaamo qaran waad ogtihiin waa saddex qodob weeye horta saddex qaybood waa qodobkaas waad ogtihiin khiyaamo qaran inaan dalka aanan iibsan laakiin aan u shaqeeyo magacna u soo hooyo waa ogtihiin caalamka sir dadku leeyahayna inaanan bixin waad ogtihiin kuwa cadowga la'ahna inay ummadda galmudug oo dhan aniga iigu necab yihiin waad ogtihiin marka arrintaas la yidhi madaxweynaha waa lagu soo eedeeyey waa ku caddaatay ayaguna waxay u qaateen in dad lagu qanciyo anigana waxay ii noqotay inaan markaa idhaahdo waa yahay wax aan bulshadu inaysan isku dhicin madaxweyne caalin ayaa ballan qaaday inuu guddi u magacaabayo waxyaabihii lagu eedeeyey siday qiimeyn ugu soo sameeyaan waxyaabaha ka jira eedeymahaas caalin ayaa ugu dambeyn ku eedeeyey khilaafka soo kala dhex galay madaxda maamulka inay ka dambeeyaan gacmo shisheeye kuwaasi oo ku tilmaamay inaysan rabin horumarka maamulka wuxuuna shacbiga galmudug u baaqay inay meel ugu soo jeestaan dadka horumarkooda ka soo horjeeda arrinta ugu muhiimsani waxay ahayd oo loo socday galmudug oo duulaan lagu ahaa in la badbaadiyo sharafteeda iyo karaamadeeda ma qabo arrimahan dhacay wax dhexdeenna ka yimid oo ka abuurmay inay ahaayeen gacmo aan waddanka gudihiisa ka baxsanayn ayaa qaybo waaweyn ka qaatay waana maqasheen idaacado badan dad badan oo ka hadlay arrinta galmudug in dhaqaale lagu bixiyey galmudug siday u kala daada lahayd waad la socotaan goobta uu maanta madaxweynaha maamulka galmudug oo shirkiisa jiraayad ku qabtay oo ahayd qasriga uu gaalkacyo ka degan yahay ayaa waxaa hareer fadhiyey wasiire ka tirsan maamulka galmudug oo hore uga soo horjeeday siyaasadiisa isla markaana u janjeeray dhanka baarlamaanka galmudug hadalka caalin ayaa imaanaya xilli dhawaan maxkamadda sare ee maamulka galmudug ay ku eedeysay in madaxweynaha uu galay dambiye liddi ku ah madaxtinimadiisa cabduqaadir axmed shimcaale telefishinka hoon cable gaalkacyo